abwaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Burco ayaa ka warbixiyay markii ugu horeysay xaaladiisa caafimaad waxaanu ku tilmaamay inay hadda ladan tahay kulan gaar ah oo aanu kula yeelanay saaka mar aanu ku soo booqannay gurigiisa dhaca magaalada Burco ayuu abwaanku noo sheegay inuu dareemay dawaqaad iyo dhulka oo la wareegaya waan xanuunsanayaa runtii waa xanuun waliba aad iyo aad maalinkan maanta maaragtaan ula yaabay oo qofku anigoo iska uun laga yaaba meel dhulku ordayo oo dee manaa ayaa jira marka maalmo dhaweyd bay arrintu aad u cuslayd iminka gurigaan ka imi halkanaan imi waa soconayaa waa hadlaya waa sheekaynaya wax mashkaladii ma jiraan dawooyinna maanta akhtabaan u tegay dawooyin baan soo qaatay dawooyinka waa isticmaalayaa waxaa la saaray baashii computer baa la saaray waxaa la wax xanuun wax mashkalada oo maaragtay haddii la ka dhigo maaragtay xanuunkan halku ka imanayo maaha mashaakil adiga gudahaaga ah oo maaragtay meel ku bugtay meel ku xanuunsanaysa meel maaragtay meel mashkaladu ka jirtaa ma jirto marka waan caafimaad qabaa ilaahay baa mahad leh xanuunku hadduu yimaadana ama waa la dhintaayo allah qofka naftu waa ammaano haddii laga kacana haddii ilaahay ka dhigo dee waa ilaahay mahadii marka anigu xaaladaydu maanta taa weeyaan dee allaan aaminsanahay oo maaragtay iminka xanuunkaygan waxaaba igu kordhiyey inaan cibaadadii kordhiyo oo haddii ilaahay ka dhigo buuqii iyo hadalkii iyo socodkii iyo wixii oo dhan soo yar ururiyo oo maaragtay aan bal isilaaliyo marka dee ilaahay sidii roob aynu ka baray xaaladaydu taa weeye wixii soo kordhana waynu isla ogaan doonaa guud ahaan ummadda ilaahay waxaanu ilaahay uga baryayaa sidii roob baan ummadda uga baryayaa ummadda aan ku dhex noolahay maalinkan maanta maaragtay kalgacalka ay haysa iyo ilaahay ka dhigo beesha caalamka labadaba dee warkaygu waa kaas maraan wax ka weydiinay inay saameyn ku hayso caafimaadkiisa safarada badan ee u baxo dalalka kala gedisan iyo ereyada dhaadheer uu ka jeediyo kulamada loogu yeedho ayuu nagu raacay inay taasi ka qayb qaadan karto xaaladda la soo daristay wuxuu banaadamku dee waa iska waa daciif weeyaan oo qofka noloshiisa inuu isbambaaniyo oo isilaaliyo oo nasto oo haddii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta dee naftan ammaanada kuwa ilaaliyaa waa shay meesha ku jirta waa uun taasa aad sheegaysaa xaqiiqa oo waxaa aada iigu badan socodka iyo la kulanka iyo hadalka iyo barnaamijyada iyo sidan iyo sidan iyo sidan yacni aada iyo aad waxaan xanuunkan iga maaragtay iga asadihiyey waxaan isleeyahay waa qayb ka mid ah hawsha maalintii yani inta howlooda aan maalinta haddii ilaahay ka dhigo la kulmo ummaddu leedahay oo dabeecad baan iska leedahay oo muraadka laga yeesho xataa haddaan xanuunsanayo dib ma aragtay waxaad moodaa un nafta inaan anigu kalifado inaan haddii ilaahay ka dhigo si dardar kulul aan u howlgeliyey ummadayda waxaan ka baryayaa cid lagu jiro allaa oge waa laysu duceeyeynayay soo duceeyaan intaa baaqaygu maanta kaa weeyaan insha allah tacaala dhowaan ayay ahayd markii baraha bulshadu ay ku wada xidhiidho sida Facebook iyo Twitter-ka laga shaaciyay xanuunka abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi balse markii aanu ku soo booqannay magaalada Burco meesha uu ka joogo ayaa idin muuqata daawadayaal in uu hadda ila taagan yahay isagoo xaaladiisa caafimaad hadda ay ladan tahay Cabdi Maalig Muuse Coldoon Samsad Burco.